fadliga uu leeyahay qofka sooman oo la afuriyaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri ruuxii afuriyaa qof sooman waxa uu leeyahay ajarka qofka sooman oo kale iyadoo aan laga nuqsaamineenin ajarkiisa hadaba laba ajir shaqeyso afuri walaalkaada ururka walaalaha aakhira u shaqeyso waxa ay si maalinle ah u afuriyaan walaalaha muslimiinta ah ee aan awoodin inay helaan afurka inta badan dadka la afuriyo waxa ay ka yimaadeen gobolada dalka waxaana xoolahooda iyo beerihii ee lahaayeenba ku dhuftay abaaro xoogan oo ka dhacay guud ahaan dalka in ka badan 700 oo qoys ayay afuriyaan dhalinyaro iskaashatay oo ku magacaaban ururada kala ah tusmo iyo walaalaha u shaqeysa aakhiro waxaana ay sanadkan mashruucooda afurinta dadka sooman ee ku nool kaamamka ka wadaan ilaa iyo 7 kaam oo ku taala deegaanka Garasbaaley gudoomiyaha kaamka maasha Allah waxa uu ka hadlay xaaladda nololeed ee kaamka iyo tabarta dadka la afuriyo waxaana uu dadka Soomaaliyeed ka dalbaday inay ku garab istaagaan ciidsiinta walaalaha tabarta daran iyo caruurta agoonta ah ee ku nool kaamka maasha Allah iyo kaamamka ka agdhow waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxaa la yidhahdaa sheekh mukhtaar sheekh axmed aa la yidhaahdaa meesha hadda aan joogno waa deegaanka Garasbaaley waxaan ku noolnahay annaka muddo oo sanayaal fara badan aan ku noolnahay qaxooto fara badan oo noogu soo qaxay ayaa noo dhooban oo alla waa kureen satarkan waxaa la yidhahdaa maasha Allah la yidhaahdaa walaalahayna oo u shaqaysta aakhiro ayaa macnaha muddo 2 sano ayagana afuristaas ay wadaan noogu soo biireen noo yimid oo maasha Allah dad oo macnaha oo alla waa ayaga iyo ururkan oo macnaha oo tusmo la yiraahdo ayagoo iskaashahayo 720 qoys 25 qoys ay afur siiyaan dad oo liita ah oo yaaban oo dhibtaysan maasha Allah alxamdulillah dhalinyarada aad iyo aad ay u dadaashay waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel alla meeshay joogan dal dib dhacdooda jaaliyada Soomaaliyeed in oo masaakiintaas oo caruurtan dhalinyarada ah oo jaamacadaha isoo hilqaameen masaakiinta inay u afuriyaan ay isku soo hilqaamay idinkan waxaan idinka codsanaynaa inaad tabaruc weyn badan inaad u sameysaan waxaan idinka codsanaynaa ilmo agoon ku jiro ilmo oo aad iyo aad u liitaan ku jira dad soo barakacay oo hadda soo barakacay oo aad u liitaan jiraan waxaan rabnaa dadkaas in oo macnaha dharka ciidda in la siiyo ilmo yar yar oo masaakiinta oo macnaha wax u gaday aan lahayn in la faraxsiiyo zakaatul fadrida in loo raadiyo oo la siiyo intaasna idinka codsanaynaa insha Allah ta'ala assalaamu alaykum dhanka kale gudoomiyaha ururka walaalaha u shaqeysa aakhiro Filsan ayaa ka warbixisay waxqabadka ururka tan iyo markii dhidibada loo taagay Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa Filsan Mukhtaar Cabdi oo ku magac dheer Filsan Qalbi Saafi waxaan ahay gudoomiyaha walaalaha u shaqeysa aakhiro والله وسنة كلوات عن مشروع فولينينو أو إلهينا إشاء محيهد نجوجوليسي وحاي يقول لي مركان أركي يعني ولا لا فرق بدن أو يعني باهي للدريهين أما وحي كافران قفك وحو باهي دريمي كرا مركو مالين كدن سومية هاي سو مركا وحان دريمي مالين كدن مركا سومانا هاي يعني قاجة دباتة ليدا يحنون كذا مركا أركاي سده ددوا وحاجرة قلت اليوم كودا أنا هلي كرن هذا بش رمضان أي وقصي درنت مرة كقر لجيا ومعيشة ديني كر أدو سو مركا وحاي سده وجيران ما أنت هذا ما حكى له السنين ما دام أرضي تهين حتى اسكو دايا waxa dadka ka soo aruursan inaad walaalihiina afar ugu dhigtaan oo aad ku qoodisaan markay dadka idin bartaan oo aad yaani meel sar gaartaan si toos ah baahida inaan yaani ugu tiri karno walaalaheena ayaan aaminsanahay Allah dad baahi tiri kara laakiin hadii aynu dadaalno dad walba yaani dadkiisa iyo dalkii yaani dadkiisa ayuu wax ku yahay wax u qabsan kara diyaad way jiraan xataa kaliya kuma ay ka bish barakeysanay Ramadaan oo kaliya daraad markii ay abaariye dhaceen oo kale waxaan aruurinay $4,000 waxaan gaarnay Kismaayo sidoo kale Baydhabo waa tagnay $3,000 aruurinay sidoo kale waxa jirta maamooyin ah kaamam ku booqano xanuunsan ama yaani odayaal iska xanuunsan waa booqana fiidiyoya ka duubnaa dadkan u bandhignaa oo sida loo haayo tusina wixii aan dadka ka soo aruurinay ayaan u gudbinaa waxa jirta maamo Soomaaliyeed oo xanuunka kansarka la ildarneed muddo sanad iyo bar ah oo aan baahideeda iyo dhibaatooyinkeeda bulshooyinka Soomaaliyeed u bandhignay ugu dambeyn ku guuleysanay in Turki loo qaado oo caafimaad ahaan loo geeyo Filsan ayaa ummadda islaamka ah gaar ahaan kuwa awooda inay sadaqada baxsadaan waxa ay ka cusubtay inay ku garab istaagaan ciidsiinta ku dhawaad 450 caruur ah oo ku nool kaamamka kala duwan ee deegaanka Garasbaaley
Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa ama baaqaan ugu dirayaa inay walaalahooda ay soo caabiyaan waxay iyagu awoodaan ay ku tari karaan ay ku soo taraan hadii yani dadkeena ay baahan yihiin inaga inaga baahan yihiin sidoo kale xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa marka anaga dhulka isugu naxariisano ayuu Allah subhanahu wa ta'ala samada inoogu naxariisanaya dhamaan bulshadeenta Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa na soo garab istaaga oo walaalaheena aan baahida iyo dhibaatada ka saarno oo aan dadaalno dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan waxa ay si toos ah u garab istaagaan bisha barakeysan ee Ramadaan dadka Soomaaliyeed ee aanay awoodin inay helaan afur iyo si lamid ah ciida oo ay si weyn u garab istaagaan caruurta agoonta ah iyo kuwa aan waxba haysan ee u baahan dabaaldega maalinka ciida oo fooda inagu soo haysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoon-yahano ah ee isugu tagay inay caawiyaan dadka islaamka isla mar ahaantaana maalinkii Soomaan ana awoodin afurka ayaa waxa ay si maalinle ah goobtan oo ku taala deegaanka Garasbaali isla mar ahaantaana lagu magacaabo kaamka Masha Allah waxa ay ku caawiyaan ilaa 700 oo qoys oo danyar ah kuwaasi oo ka soo qaxay gobolada dalka kadib markii abaaro xoogan ay ku dhufteen beerihii iyo xoolihii ay lahaayeen ururadan isu tagay ayaa waxa ay kaliyihiin ururka u shaqeysa aakhiro ururka walaalaha u shaqeysa aakhiro iyo si lamida ururka tusma oo ayagu muddo 6 sano ah marka la isku daro xiliyada ay soo wadeen caawinta dadka islaamka ah guud ahaan ay noqonayso waxaana si weyn ugu faa'iideystay fursadan afuri walaalkaaga dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan kaamkan oo ilaa 720 qoys lagu sheegay inay yihiin si kastaba ha noqotee arintan ayaa waxa ay sidoo kale daba socotay kadib markii dhalinyaradan Soomaaliyeed ay arkeen baahiyaha dadka gobolada ka soo qaxay waxaana sidoo kale qorshooyinkooda kamid ah inay bixiyaan adeegyo waxbarasho oo free ah iyo si lamidaba caawinta dadka danyarta ah ee iyagu kaamkan iyo guud ahaanba duleedka magaalada Muqdisho ku nool Cabdiraxmaan Yuusuf Kulmiye RTN TV Muqdisho dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed